magaalada muqdisho nadaafadeedu waa mid ka duwan marka loo eego waayadii hore tan iyo markii xilka loo magacaabay gudoomiyaha gobolka banaadir injineer Yariiso 22 Juun sanada 2018 wax badan ayaa isbedelay 42 milyan iyo barax canshuurta ay bixiyaan dadka ku nool banaadir ayaa qayb weyn ka qaatay bilicda iyo quruxda magaalada hadda ka muuqata waa 3 bilood gudahood ma aysan dhicin maamul injineer Yariiso ka horeeyay ee sidaan sameeya gudoomiyaha gobolka banaadir Yariiso waxa uu ka mahad celiyay canshuurta ay bixiyeen bulshada ku nool Muqdisho injineer Yariiso duqa Muqdisho ayaa booqday goobaha bilic soo celinta ay ka socoto oo maamuladii asaga ka horeeyay aysan wax sida u buurneen oo qaban gurmad aysan horay u sameyn maamuladii ka horeeyay midka uu hadda hormuudka ka yahay Yariiso ayaa ka dhex socda caasimadda durba Muqdisho xilli roobaad ay gashay meelo dadka guryahooda uu roobku ku dumay ayuu duqa Muqdisho tagay iyo degmooyin ka fog xarunta gobolka banaadir waxa mas'uuliyad naga saaran tahay in shacabka loo gurmado gurmadkiina saad u jeedaan waxaan soo dirnay 10 booyado oo aan ugu talagalnay in ay biyahan ka nadiifiyaan meesha oo xalka ugu dhawo kumeel gaarka hadda noqon kara duqa Muqdisho injineer Yariiso waxa uu ballaarin ku sameeyay maamulka gobolka banaadir hadda waa maamulka gobolka banaadir sidaas waxa ku muujinaya culayska bulshada ku nool degmooyinka ay ku qabeen inay xarunta gobolka oo ka fog degmadooda hadda isla degmada ay degan yihiin xafiis uu maamulka oo hormuud kaga yahay Yariiso uga furay balantiin waa oofiseen waana mahadsantiin shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa annaga maamul ahaan ballanqaadka qaadno oo oofinaynaa waana naga go'an tahay maamulka shacabka inaan noqono waa howl kale cusub haddana dhiirigelinaysa bulshada caasimadda iyo aaminaadda lagu qabo gudoomiyaha gobolka banaadir Yariiso amniga iyo ka shaqayntiisa isdhexgalka dhalinyarada tusida nabadda wax wada qabsiga intaba lagu talagalay waxaan dareemaynaa farxad hawaaye anaga gudoomiyin dhiirigeliyo gunoon nala dhiiro maasha Allah ku faraxsanahay waxaana jecelnahay awadi awayaal kale oo nala dhiiro insha Allah saan si ka fiican sidii maamulka gobolka banaadir noqoto يعني tilmaamaysa يعني gudoomiyaha oo socdo inuu degmada Kaaraan yani wax badan inuu dareensiinaysa anagu maadaama sport soo marnay oo yani taageerayaasha bulshada dadka fiirsanayaan ma sha Allah aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama noo imaado gudoomiyaheena marab inuu saan u dheel aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu dheel oo inuu nagu dhiirgeliyo marab saan aad iyo aad u jecelnahay Nuur Saciid Taliil raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho gudoomiyaheena gobolka xilkad ka saartay garabka ku suura inaad tahay mid gudan kara gabi waan ogsoonee kulahay kula jiro kulaheena kula jiro gudoomiyaheena gobolka xilkad ka saartay garabka ku suura inaad tahay mid gudan kara gabi waan ogsoonee kulahay kula jiro kulaheena kula jiro siwaay arago danta guud ka taliyo darajada gayaate ummadada qacan qabo siwaay arago danta guud ka taliyo
danta guud ka taliyo darajada gayaatee ummadada qacan qabo anna waan garwaaqsaday inaad geesatahayo gedi soomaali wayba garbahaaga joogtee anna waan garwaaqsaday inaad geesatahayo gedi soomaali wayba garbahaaga joogtee gudoomiyaheena gobolka xilkaad guud ka saartee ee garabka kuu suura inaad tahay mid gudan kara gabi waan ogsoonee kuulahay hakula jiro hakula jiro hakula jiro kuulahayn hakula jiro